waxaa runtii nagu soo noqnoqonaya ayaamahan oo ay dhagaheena ku soo dhacaya qaanuunkaa isaga ah ee baarlamanku uu baasgareeyey inkastoo la sheegay in la joojiyey oo dib loogu noqonayo haddana wuxuu nin nacasaa lumay oo waa la soo helay maxaa layga farxi buuhi berriba waa lumiye inta kitaabka ilaahay miiska dowladda aanu oliya meelaha wax laga maamulo maalin walba wax lala yaabaabaa soo boodaya haddana mid kalea soo boodaya waar inaga qabta dee milil guudkii lama dhayo waxaan khudbaddeennan aynu ku soo urursanaynaa xalku waxa weeye maalin walba xeer xiimayo oo xun ma hor joogsan karnee in runtii la yidhaahdo waxiga samaawiga ah ayaa ilaahayna abuuray noo dooray aan ku daysano kol hadday imanayso miyuu khilaafay bal haddana dib u eega dib u eeginu ku jiri mayne xalka dhabtaanu gurno ilaa ilaahay wuxuu uhi alaa lahu alkhalqu waalamr wardadiiow ilaahay arrinkuu wuxuu leeyahay khalqiga abuurka amarkana wuu leeyahay labadaasuu ilaahay israaciyey anaa idin abuuray amarka iga qaata markaa dadku hadday idhaahdaan waa runoo waadna abuurtay laakiin dee amarka melihida annagaa leh waa kala kacsana waxay ka dhigan tahay adigoo yidhi ilaahow namaad abuurin oo kale cidda tidhaahda ilaahow nama amartid ama sharciga iyaga ma haysid namaad abuurin bay u dhigantaa waxaa aan dadka xusuusin lahaa inkastoo malaha dhowr ciqdi ka soo wareegeenoo ay isbedelba yimid dadka qaarkoodna dhinteen qaarkood yaryaraayeen wakhtigaa xeerkan isaga imika la ydhaha xeerka kufsiga wuxuu ka mid ahaa xeerka ciqaabta guud ee uu lahaa talyaanigu rugka koodh baa la odhan jiray hindidu wuu iibgeeyo mar lagu dhaqi jiray wuuse iska bedelay qarniyo dhexe ayuu iska bedelay 1930kiibuu xeer u ahaa kii baynu soo qaadanoo la soo waariday 1993kii ayaa baarlamanka la keenay madaxweyne waktigaasaa keenay sidan oo kale aan khudbadaha uga dignay waa 25 sano ka hor rubuc qarni xeerkan kufsigu markaa kaa ciqaabtu ka mid ahaa waa noo yeedhay wuxuu uhi maxaa ku diidan tihinoo waxaanu nihi bal waanu ku soo tusi doonaa 11 culimo waktigaa ka mid ahaa baa loo saaray 125 qodobo diinta khilaafsan baanu ka soo saarnay halkii baa lagu joojiyey isagii uma imikana waslad ka mid ah nimankii berigaa waday ayuunbay soo celiyeen markay sidaa malaa diintii imika waa laga caajisay haddana waslad ka mid unbaa lasoo fujisanaya oo hay-adihii iyo raggii berigaa waday kolba ay soo celinayaan wax yar waxaan dul mari lahaa iyadaynaan dheeraynaynin malaha dadka qaarkood waxay u haystaan inuu yahay waxani wax iska sahlan waana laga yaabaa raggii baarlamanka ahaa ee qalinka ku duugay ragga qaarkood khudbadda dhegaysanayaan ay fadhiyaan laakiin waynu cudurdaari karnaa maadaama ay dal walaalahayna oo odayaalo oo muslimiin oo cibaadaysanaya wax badan ba hadda mashquulku iska badan yahay waa laga yaabaa inay yidhaahdeen war dee maba akhriyi karna inaga sii daaya ama qaarkood aanay akhrin ama qaarkood wax sahlan ay u haysteenba way dhici kartaa haddaynu cudurdaarno weeye laakiin aafaadka uu xambaarsan yahay 14 qodob oo ka mid ah ayaan yaro dul carari lahaa oon dareerin lahaa dabcan iyadoo khudbad iyo muxaadaraduna ay kala duwan yihiin oo khudbadda in lasoo kooba ay tahay waxaa ka mid a waxyaabaha ku jira shareecada khilaafsan horta marka hore waxay inagoo sheegi doono ceebihiis ayaa waxay ku bilaabeen xeerkani inuu waafaqsan yahay shareecada waa iftiraac cala allah ilaahay lagu been abuurtay weeye xeerkan aanu soo wadnaa sharcigu khilaafsan yahay mana waafaqsana shareecadu waafaqsan yahay mana waafaqsana waa been abuur qodobka saddexaad baa saa sheegaya xeerkaa isagii waxa sinada la yidhaahdo uma aqoonsano siduu sharcigeen u yaqaano sinada wuxuu u yaqaanaa waa xeerkii gaalada caadiga ah ee ingiriiska iyo faransiiska iyo westernka waxay u yaqaanaan un qofka marka la qasbo laba nin haddii ay isfuulaan laba naagood haddii ay isfuulaan nin iyo naage hadday kala sinaystaan oy is ogol yihiin sina lama yidhaahdo xeerkana way ku sugantahay faqradda u horeysa waad akhriyi kartaa waa qaanuunka gaalada caadiga ah laba qofoo kastoo is ogol oo galmo noocay doonaysa ha haatee isku ogoli agtooda sina kama aha waanay ku xusan tahay marka sinada waxaa la yidhahdo waa la iska samayn karaa wey dad yahow mar hadday isogoshiin dhankaa doontaan u rida bay ka dhigantay rag iyo dumar dhinacaa doontaan u wada xeerkan isagiisina wuxuu u yaqaanaa waxaa loo yaqaan xagga shareecada ikhtisaabka ama kufsiga kufsigaas unbuu leeyahay kaasaasina ah oo cuqubo yeelanaya cuqubadii maxay noqotay xeerkan ku jira cuqubada xeerkan loo dhigay maaha tii islaamku u yaqaanay qur-aanka iyo xadiidku ay sheegeen ahayd in qofka ama la karbaasho ama dhagax lagu dilo waa xabsi
marka waa taqyiir lisharci illaah ilaahay sharcigiisiba si cad loo bedelay aayadihii ku sugnaa suuratu nuuri aayadihii kale axaadiistii nabiga saxiixa calayhi salaatu wasalaam halkaasaa la iska dhigayo waxaa la gebiga cuqubadaaba kufsigaba waxaa lagu bedelayaa xadhig dilna male karbaashna male sidaana waxaa tilmaamaya qodobka shanaad oo aad ka akhri karaysaa xeerkan isaga ah waxyaabuu shareecada ku khilaafsan yahay waxaa ka mid ah ninkii xaaskiisa ama odaygii islaantiis qabay hadduu midigka kale ku daqaqabuu qasbo wuu kufsaday weligoodba ha isqabaan islaantiiba afka marooriso odaygii diidiiday markaasuu isna riixayo xoog buu kaga qaaday maxkamaddaa la soo taagaya ninkiiba waa lagu haystaaba islaantiisii rag badanoo waxaa laga yaabaa si hadday u dareensay waa inaga joojiya bay odhan layaan habruu inaga hor imanin sidoo kale dee islaantu waanay dirqii karayn mudaacabada waxaan la idhaahdo iyo ciyaarta ninkii gabadhu ay isku sameeyaan iyagoo dee isxodxodanaya hadduu midagka kaloon ogolayn ku sameeyo waa maxkamad waxa qasab la idhaha unba agtooda dembi ah waxaa heerkan ku jira haddii ilmo yar loo guuriyo ama nin ha ahaado ama gabadh ha ahaado waa qodobka 7 waa dembi waana maxkamad taa macnaheedu waxa weeye nebi maxamed baa markuu caasho guursaday dembiile ahaa hadda u fiirso daada lagu qaangaaraana waynu sheegi doonaa uba 18 jirba 18 qof ka yar haddii loo guuriyo waa maxkamad xadhig intaa leeg baa qofkaa la marinaya odaybaa inantiisii guuriya ina yar baa 16 jir 17 jir baa loo guuriyey gabadh waa maxkamad dembiilayaal weeye dad qof aan waxba dooran karaynin oon qaangaar ahayn ayaa loo guuriyey halkaasay taasina maraysa dee islaamkuna wuxuu qabaa ninka waalan in loo guurin karo gabadha waalan loo guurin karo sabiga loo guurin karo inanta yar loo guurin karo zawaajul maslaxa bay fuqahadu u yaqaanaan kutubteena macruufka ah dee fiqiga guurka danta ku jirta weeye hadday gabadhi tidhaahda ilmaha yar waa ina wanaagsan oo nasabkiisu fiican yahay xooluu leeyahay anaa korsanaya 10 jirkiisaba ha ahaado oo sidiisaa ku korsanaya dee ka dhursku baa la odhanaya dhaqankeenii soomaalidana way ku jirta markuu nin qolo jeclaado wuxuu leeyahay nasabadoodii ehelkoodii ummadoodaa wanaagsanoo inantaasaan ka guursanaya iyadoo yar baa loo meherin jiray siduu nebigu u korsaday caash markaa korsaa la odhan jiray kadalik nin waalan gabadh waalan qofku hadduu dantiisa warka waa la isguursan karaa waa guurka maslaxaddu ku jirtaa la yidhaha qofkan dhiman haddii loo danaynayo khalaas waa loo guurinaya weligaa markaa u aqbalaya waa dembi halka waana la xidhayaa qofka arrintaa gala 18 jir kole ka diyaarya qodobka 8aad ama arrintaa 8aad ee balaayada ku jirta waxa weeye qaangaarka waxay u yaqaanaa ama xeerkan u yaqaanaa odayaashu baaskareeyeen 18 jir 17 jir 16 jir 15 jir midna qaangaar maaha salaadna laguma laha soonna laguma laha sakana laguma laha xajna laguma laha waxbaba halkaana diin dhan baa duntay oo daaqada laga tuuray sidoo kale waxaanay qaangaar u aqoonin shareecadeenu shayga qaangaarka u taqaano ah hadduu qofku biyaha taranka helo ama gabadha naasi ay u soo baxaan ay dhadigaato oo dhiiggii caadada ay hesho waa qofkii oo dhali kara waxaa dhacda dadka barwaaqada ku koray ilmuhu isagoo 12 jira ama 10 jira ayuu dhali karaa wiil iyo gabadh mid kastaba ha ahaado oo markaas caruur dhali karaa taana laguma qaangaaray ku leeyihiin xeerkan waa arrinta 9aad ee ceebihiisa waxaa ka mid ah cawrada rag iyo dumarba da islaamku waxbuu u yaqaanaa dumarkana waa jidhkoo dhan marka laga reebo wejiga iyo labada gacmood raggana waa xudhuurta iyo jilibka inta ka dhaxaysa halkan cawrada agtooda waxa weeye marka uu qofku ciqaab yeelanayo cawro fayday waa marka uu intaa yara xumaysta baneeya nigiska yar lagu xidho xubinta taranka iyo meesha qashinku ka baxay intaa yara hoos ee dabada iyo xaggan hore intaa yar markuu qaawiyo weliba meel fagaaro ah dhexdiisa uu isku qaawiyo intaa ka tuuro ayaa cawro la yidhaha laakiin gabadhu haddii ay dee iska gashan tahay nigis kayshaligii iska gashan tahay meelaheedaa iska marayso cawro maaha ninkiina cawro maaha waata keenta markaa dee in yaru intay gashadaan inay isqaawiyaan waa akhlaaqiyaadkii ayaa halkaana daaqada laga tuuray xeerkani marka uu ka hadlayo cuquubada sinada ay ku sheegaan xeer ciqaabeedka kufsiga dadkii bay kala saareen diinta ilaahayna ma kala saarto dembiilu waa dembiile waxay leeyihin kaasi waa madax kaasi waa maalqabeen
kaasi waa ilmo yar kaasi waa oday dadka noocaas cuqubadoodu waa nooca dadka caadigaana cuqubadoodu ummadiiba sidii waxeerkii yuhuudda ilaa yuhuuddu way kala saari jireen dadka halkana waa la kala saaray ma yaqaano waxa bayinaadka la yiraahdo ama cadeymaha sharcigeenu wuxuu leeyahay qofka hadii sina lagu sheego ama sina lagu soo eedeynaya afar markhaati oo dumar ahayn rag ah oo caruur ahayn rag ah oo arkayay waxan oo isku jira wala wax cadeeyaan inta hadii aan lahayn qofka sheegaba la ciqaabaya halka waxay ku leeyihiin ilmaha yar haduu soo cawdo oo iraado waa la fuulay gabadhuna ay tiraahdo waa la kufsaday waa laga qorayaa maxkamad baa la saaraya waa la xirayaa kii waxan geystay iyaga meeshu waa si ay u waalato dadku madaxa isla galo qoyskii baa wareeraya odayga islaantii waa la isku diray bulshadiina waa la isku diray waana iska macruufo sababka fitnadu markay badato in iyo gabadh baa isu caroonaya ama is seegaya ama gabadh baa doonaysa in ninka argoosato kadibna waa ay ashkateynaysaa waxay leedahay way kufsaday ee hal ay eego ayay leedahay waa runteed baa la leeyahay wax kale cadeyn kale ma jirto waa cadeynta ugu adag waxa sinada la yiraahdaana cadeynaha xagga shariicada xataa dumarku ma galaan oo ma galaan adoomo oo ma galaan caruurta yaryar iyo sibyaanta qodobka 230 ayaa sidaa sheegaya iyo qodobka 7 ama 10 labadaba xeerkan isaga hay si kale wuxuu sheegayaa ilmaha yar iyo qofka waalan in la ciqaabi karo haday wax kufsadaan sharcigeenuna tii qofku mukallaf waa inuu yahay marka ciqaab la marinayo خطاب الوضع هي خطاب التكليف وحلا إلى ما تجرى وصل فقه وحين دبعتين شلو جيستو ولا وح حسابتهم لكن عقابتي لسارة يقفك لما يسكترن سبقية ما لها قفك وارن هل كوالله في الضين لك ولا عقاب يا بكلين قلب كشنيا فرتنات قرآن بعض كالكتاب قلب كلك حير كلفتيس وحي كلين حير كوحي خلاف سن دقطع لقى توريا ستور كده وحكو قرنا وحكستو خلافة قوانينتا شريعه waa laga tagay halkii uu begeliyana waxay dhan xeer kan iyagu si aad u adkaynayo riixaya wax kasto qaanuun oo khilaafay isaga ayaa la tuurayaa bay dhan 45 baa sidaan sheegaya arinta afreetobnaada ku jirta waxa weeye ma ogola xeerkan cafiska iyo sulxa waxa la yiraahdo ilaahayna wuxuu waa an ta'fu aqrabu lit-taqwa kabal baa wax lagu sameeyay nin baa wax lagu sameeyay qofkii wuxuu waan cafiyeebaan gabadhii la kufsaday haday tiraahdo anigu ninka la yima ciqaaban iska cafiyo meher kama rabo arshul bikaara kama rabo waan cafiyo cafiska sharcigu tixgeliya kani mabalaha wax cafisaba malahaba illa in qofka ciqaab la mariya qofkana waxaan isaga qofku galayna haduu cid u geysto shakhsiga la weydiinaya waxa sal cuquba xaq u leedahay ma lagu mariya haduu ha yiraahdo waa loo mariya haduu yiraahdo waan cafino wala iska sii deynay hatta nafti la dilay عفس بيلاد marka kana cafis ba male engeeg ugu xiraya wixii soo hormara halka waxaynu aragnay 14 kaas tusaale inoogu filan oo yaroon idin ka soo qaaday dadku wuxuuna iska maqlayaan meelaha marka waxa laga hadlayo war malaa waxa yar la sheegay wax yar oo iska sahlan waa diin la'aan marka la soo ururiyo taasoo odayaasheenu baasgareeyeen iyo madaxdeenu oo dadka maxay u ilaaliyaan talo ma siyaasad ma dhaqaale waxa xog ma jiraan diintii noocan tahay idan waxaynu ku soo ururinaynaa iyo idin dul marin meesha taagantii waa meel xasaasiya markaad saxiixada xeer laga yaabo 100 sanadood in lagu xukumo oo shariicadana uu khilaafsan yahay adigoo geeriyooda xabaasha lagu cadaabaya aakhirana maxkamadda ilaahay baa taaganta ilaahayna awoodiisa baa ku haysta subhanahu wa ta'ala marka waxay ka toobad keena wixii sameeynaysan u fiirsada oo daraaseeya waxa soo dhanaa waxa soo ururinaya marka horeba waa in guddiga culimada ahay la magacaabay xeerarka iyo nidaamka eegaysi marka la soo diyaariyo loo bandhigayo loo reebal shariicada weega marka shariicada wixii khilaafsan dhinacaas la iska dhigayaa wixii shariicada ka soo horjeedo waa la saxayaa intaanay taasi jirin maalin walba hay'ad lacag xambaarsan oo rooraysa ayaa imanayso dabeetana oranaysa aqlabiyadun siiya garsoori marka la weydiiyo wuxuu leeyahay baarlamaanka soo baasgaray baarlamaankii marka la weydiiyana wuxuu leeyahay war meelo kala bahalka laga wato waabaan hor joogsan kari weyne waxa ka socon maayo waxaan ku soo ururinayaan dheerayn mayno waxa laga maarmaanayno khudbadeennuna mixwarkeedu ahaa maalin walba wax uskagaysan kama hortay karnaa diinta ilaahay uu soo noqono oo kitaabka iyo waxiga aynu ku dhaqno waynu ku dhaqi karaynaha krasha jirtee intaan la'aan maaha laakiin waa krasha baynu oran karnaa runtii marka inagoo xukuumad iyo shacbiba u wada jirna ilaahay waxigiisa waa inaynu raacnaa maaha ikhtiyaari waa farad
وواجب ووحي لها ينقع قبين يهدي أين يالي وينه وجزاكم الله خيرا. اللهم أرنا الحق حقا واللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر المستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ولايتنا وولاية جميع المسلمين في من خافك واتقاك وحكم بكتابك يا أرحم الراحمين.